kuwan waa qoyska ugu baqiilsan adduunka internetka sida musqusha sababtoo deriskooda ay wuxuu xireen wifi markaad ku jirto musqusha aad ay u xoog badan si fiican ku shaqeynaya dadka isticmaalaan jeermis dilay irdaaqada ay furtaan to amar waa inay soo gataan jeermis dilay kaliya waxay xiraan dadku waxay isticmaalaan inuu soo gal guryahooda sidaas darteedna waxay furaan daaqadaha iyo iridaha kala dhamaantood waxay isticmaalaan kaliya hal biisa toodna habeen walba ay kuriyooda inay ku nool nolol taajirnimo habeenada kamid ah wiilkooda wiilkan kale ay arkayaan wiliba waxay isku haajireen isku college uu sheegay inuu soo helay shaqo taasoo meerin yani qof inuu meerinaya asaga wuxuu ku dhaaniga meeshta shahaado isla markaana waxa lagu dhahay waxaan ku sameeynaa shahaado book oo fake ah waxa loo sameeynaa shahaadada isla marhaantan uu soo baxay walbina isaga soo raadinaya shaqada kan wuxuu imaaday halka degan dadka taajiriinta shahaadisan gacanta ku wataa guriga laga furay isla markiina guriga soo galaya loo sheegay saaxiibkiisa inuu kan ku jiro inuu imaanay isla markiiba gabadhan waxay ku leeyahay waxaan rabaa qof si fiican u bari kara dadka sidoo kale managementkiisa ama maamulitaankiisa ay wanaagsan tahay wiilku wuxuu ku sheegay waxa inuu ku fiican kadibna soo baxay imaanayaan qolka ashirka uu sharxay kadib gabadha bilaas inay xanaaq kadib isaga gacanta ku qabanaysa isla markiiba gabadha ay degaysaa leeyahay wuxuu sameeyay wiilkan sababtoo waa mid aad u aqli badan wiilkani markaan sidaas ayuu shaqo ku helay ba sidoo kale waxa wiilkaas dhib badan sidoo kale wiilkan wuxuu ka fiican yahay farshaxanka wiilka wuxuu sheegay halka inay imaadeen 10 macallimiin ka badan laakiin dhamaantoodba wax si fiican uma aysan barin way ka xanaaqin jireen oo kaliya asaan ku amaanaysa isaga inuu yahay macallin ugu fiican gabadheeda wax bari kara wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay caruurta loo qudaniga caruurta yaryar aad oo jecel hortan aad ugu faraxsan hadalkiisa tagta waxa soo raacay wiilka isaga walaashiisa annaa daawadaha ilaabin muuqaalkana like noo saarto sidoo kale guriga waxa loo keenay barto wiilka yar sidoo kale mid badan sidoo kale aad u xanaaq badan annaa iyo walaalkeeda dad aad u aqal badan kaliya waxay rabaan inay helaan lacag wax walba inay sameeyaan si annaa waxay laadaysaa hooyada waxna ku dheesay wiilkan gudaha ay ku xanuunsan gudaha ay u baahan laga daabiyo bana isagoo lagu dabeynay hadal macaan badan oo aad u jilcan horta waxay ku dheesay walaalkaaga wuxuu ii sheegay inaad ku fiicanta artist aygan waxay ku dheesay aad aan ugu fiican loo sheegay darawalka guriga inuu yahay qof xun oo yani aan wanaagsaneyn sib annaa waxay ku fikiraysaa darawalka guriga laga dhiga aabada sababtoo aabada gaarwadista si fiican ay u yaqaanaan annaa waxay ku dheesay aniga ku keenay darawal aad u fiican kala horta darawalka mar walba wuxuu sheegay gaariga inuu galo shil wax walba uu ku sameyn karo gaariga horta waxay sheegaysaa halkan inay ka weysay darawal aad u fiican waa gaarwadista si fiican u yaqaan kaasi annaa mar kale hadan waxay dheesay aniga ku keenay qof fiican waliba aad u wanaagsan aabaheeda ay shaqada soo bandhigaysaa isla markiiba isaguna uu aqbalaya shaqada kaasi dhamaantooda waxay dareemaa inay urmow doonto mid kamid ah riyooyinka ayaga lahaayeen daawadaha ha ilaabin muuqaalka ina like noo saarto markaan wuxuu sheegay gabadha aabaheeda inuu ku dhacay tuberculosis waxay sheegaan guriga inuu san guri aad u fiican tan guriga ayaga ay qaadanay oo waxay ku noolaanayaan nolol taajirnimo leh.